se ku horeyne maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa soo dhameystiray baa la yiri wajigii labaad ee dhismaha jid isku xidhaya magaalooyinka Afgooye iyo deegaanka Carbiska. wariyahayaga Cabdiweli Cali online ayaa warbixinta noo soo diray. مسؤولينتان oo maanta soo kormeeray dhismaha wadada laamiga ah ee isku xirta deegaanka Carbiska iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa shaaciyay in la soo gabagabeeyay wajiga labaad ee dhismaha wadadan laamiga ah loona gudbi doono wajiga saddexaad. xogayaha degmada Afgooye Cumar Fari Muuse iyo gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalim ayaa uga mahad celiyay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose kaalinta wanaagsan ee uu ka qaatay dib u dhiska wadadan oo isticmaalkeedu gaadiidka dhib badan ku qabay. ka rajeeynaa inaan dad noo timiday waxaan isleenahay 1 kiiloomitir bar ka badan ayaa la ugu diri doonaa marka ina 1 kiiloomitir bar noogu daro jidka ka bacdina 5 kiiloomitir oo kala gudoomiyaha haduu yimid najax waxaan isleenahay nabadeen najax waay 5 kiiloomitir oo kala waxaan isleenahay waa helaysi waxaan ka codsanaynaa degmada Afgooye si gaar ah in loo soo fiiriyo degmada Afgooye waa usha kaliya ee ku taagan tahay Koonfur Galbeed waxaan u baahanahay marka in la xanaaneysto nala dhaqaaleeyo nala barbaariyo waxaan keensanana waxna loogu daro wadadan 800,000 hay'adda nisaan ka soo jafjafanay inta kalena Koonfur Galbeed aan kaga fadhinay iyo bulshadeena iskaashanayna iyo amnigeena iyo waxaan wada socda. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa ugu baaqay gaadiidleyda iyo bulshada in kaalintooda ka qaataan howlaha horumarineed ee maamulkiisu hormuudka u yahay. oo runtii aan ka fikirayay ahayd wadadii iskaashiga bulshada iyo maamulka lagu dhisayay ma dhammaan doontaa mise ma dhammaan doonto. waxay ilaahay mahadiya inaad shaqo fiican aad qabateen wadadii 3 kiiloomitir maanta ay noo dhisan tahay 1 kiiloomitir barka kalena biidinillaahi tacaala waan dhammayn doonaa waana dhammaystiri doonaa haddii alla Cabdiweli Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose.